Soomaaliya is dagaalan dadka dhimanaya mas'uuliyadooda ma qaadayso ama santa dadka did intaan caadi waay meeshii lagu ciil lahaa oo xoolo laga qaban lahaa inaad dhimitaa iskaga goon Ben Xasan Sheekh dagaalka mudan Xamza wasaaraha Soomaaliya waxaa dhici karta anaga iskuulka inaan dagaal qaadno dhammaantihiin ani waxaa dhihi lahaa dagaal ha lagu qaado Ethiopia because hadda ka hor hadaan diblomaasiyada ku qaadayna Nairobi hadda ka hor badeynay rabtay diblomaasiyada loo xaliyay Ethiopia way soo baxday hadaan Ethiopia diblomaasiyada ku xina wadan kasta wuxuu isku soo dayay inuu badeyna qaato sidaan waxaa dhihi lahaa dagaal ha lagu qaado si ku arkaan awoodeena si aan u xoojino dawladda iyo qaranka dalkan ma ahan dal u diyaarsan ama heegan u ah dagaal toos ah marka waxaan jeclaan lahayn inaan dalkan ku difaacano si diblomaasiyad ah wada hadal ah la qalabaya ciidanka Soomaaliya kuwa cirka dhulka iyo badda tooska waxay sababaysaa dhaqaaluhu yaraado iyo masaakiinta danyarta iyo faqiiriinta inay ku baaba'aan dagaalka Soomaaliya sheeyadaa tagtid odo dheesid walaalo wadankan khayraadka naga iyo badanada wuxuu ku haystaa naga qaw haddii kaa didan maxaa sameynay meeshaan ma iska fadhine mas waa dagaaltami mahadsantahay ma badan ayaa jiraan qaarkood naga aqbali karaan qaarkoodna way naga diidi karaan laakiin isaa ku fikireyno inta naga aqbali doonto ka badan inta naga diidi Ethiopia dagaal kuma qaadayno ayaga rabaan inay badayna qaataan annaga Soomaaliya nahay meeshan hadda aan taaganahana waa Soomaaliya annaga iska badan joognana waa Soomaaliya badeeda ayadaana joognaa ee maahana Ethiopia badalada ina aadeen macnaheedu waxa waaye Ethiopia ayada noo imaanay ayadoo ciidankeeda wato Soomaaliya weerar ku soo qaaday marka Soomaaliya waa ay kala taqaanaa wadankooda ayaga isdifaac ee macnaheedu ma Ethiopia dagaal Soomaaliya dagaal qaaday Ethiopia ku qaaday ay dhacdo in aan weyno wadanna difaaco oo aan iska dhaafno dagaalka oo si diblomaasiyad ah wadanna difaaca aan weyno maadan arkin miya Falastiin codsi way soo weydiisatay oo dhulkooda ay xoog lagu haystaa wadan walba ay diiday iyagoo hub haysan ay dhagax ku dagaaltamayaan sababtoo ah qof caawiso way anakana adaan hub haysan waa dagaalami karnaa maama Soomaaliya difaacan diyaar mutiin aniga kama keenin ayaga iska keenay sababtoo ah dhiiga ku jiro wuxuu ku shaqeynaa inay wadankooda difaacdaan war wadankeena ma difaacana wadankeena annaga iskala waana difaacayna wada jiraan ugu difaacayna inkastoo Soomaaliya ay kala qaybsan tahay 5 qayb ee u kala qaybsan tahay shantoodaas qayb kulli hadda waxay diyaar u yihiin inay dagaal galaan adaa dhahdid Soomaaliya hadda dagaal galeena anagoo hadda kala firaaqsan ayaa waxa isku noqonaynaa hal mid oo waxaynu galeynaa dagaalkaas wayna ku guuleysanaynaa thank you fiicnaan wadanka faaruq noqdo meeshii lagu ciil lahaa xoolaha xoog laga qaadan oo maanta dhanayso walaalo xoolaha iga leex iska dhimo laakiin sharafa ku dhimata Abdullah waxaan dhahay 1977 dagaal aan ku qaadno Ethiopia 1977 hadda lama tagno Soomaaliya 1977 si ay maan Soomaali qabiil aan kala reebtay tuugtid khayraadkayga iida war iida iga leex dhulkayga badeeda iida taas macnaheedu ma aha laakiin aad xuriyad helaysid waligaaga maanta daa barbariyad berina way soo laabanayaan oo maalin walba kugu goodinayaan inay adiga dhulkaaga ka qaadan doonaan so shacabkeena madaxdeena kulli waxa ka codsan lahaa inaan Soomaaliya dagaal ay ku qaado Ethiopia si badayna uga cesho thank you ugu badan meeshan imaanayeen ay ka hadlayaan waxay ahaayeen tirada ay yihiin Ethiopia waa 120 milyan say sheegeen waana sida saxda anagana waxaan nahay 17 milyan waana sida saxda soo markay waxaan rabaa inaan iraahdo hal eray oo inta ku filan oo ku soo gabagabeeyna meeshaas waxa jirto wax la yiraahdo tiro iyo wax la yiraahdo tayo waa badan kartiin inta rabtiin ay kartiin millions or billions or trillions aan noqon kartiin laakiin muhiimadu waxa waaye tayo la eg ayay leeyihiin waxaan u dagaaltamay miyay ka dhacsan yihiin mise ama ogoshahay mise naftaadu ma aqbalaysaa inaad u dagaaltamayso wax adiga xaq u leedahay Ethiopia dadkeeda ama ciidankeeda inta ugu badan waxa kama dhacsano ama ma aaminsano qofka bilaadankaana wuxuusan aaminsanayn ama uusan u diyaarsanayn ma u dagaaltami karo mana nafti